waan socdaa, waan hadlaa, waan dhoola caddeeyaa. Balse nafsadeeda intaba kuma qanacsano. Aniga dadka waxay i moodaan inaan ahay qofta dunida ugu farxadda badan. Balse ma oga miyaa holca qalbigayga ka shidan? Haa, waa runtooda, way iga aamini karaan midaas. Waxay ii malayn karaan qofta dunida ugu farxadda badan maxaa yeelay waan u dhoola caddeeyaa iyaga. Markaan arko kuwa qaaroo daacadda u dhoola caddaynaya una faraxsan, aniga waan ka maseeraa. Waan ku kalsoonaaday, wuu i qaaday, wuxuu i geeyey meel madaxiisa ka sareysa. Ugu dambayntii dhulka ayuu igu sii daayay. Aniga maanan ilmeynin, keliya waan dhoola caddeeyay. Dadka waxay ii maleeyaan inaan aniga wax dhaawacay. Inta aan dhoola caddaynaya waxay i leeyihiin adiga ayaa wax qayaanay. Ma oga miyaa in aniga uu isoo gaaray dhaawac weyn? Misena oga miyaa in qofka dhaawacan uu dhoola caddayn karo? Way ila sheekaystaan, waan la sheekaystaa, balse iyaga markii ay iga seexdaan habeenkii, aniga waxaan la sheekaystaa ilinteyda. Intaba ma oga iyaga. Haa, aniga qalbigayga waxaa ka guuxaya su'aalo fara badan. Waxaana rabaa intaba jawaabtooda inaan helo. Aaway qofka aan weydiin lahaa. Haa, mar walba waxaan isdhahaa hal mar oo keliya muu hortaada soo istaago. Waxaan weydiin lahaa dhammaan su'aalaha iga guuxaya. Jawaabtooda haddii aan helana nafis ayaan dareemi lahaa. Haa, nafis ayaan dareemi lahaa. Waan ku qaylin lahaa. Hal ayaan u weydiin lahaa. Haa, waan weydiin lahaa.